degmada xudun ee galbeedka gobolka Sool ayaa waxa la soo sheegay inuu dagaal ku dhexmarayo laba beelood oo wadaaga dagaalka labada beelood ku dhexmaraya duleedka lafta weyn oo ka tirsan degmada xudun galbeedkeedana u jirta ilaa 40 kiiloomitir ayaa waxa la soo tabinayay in laba qof ay ku dhinteen ku dhawaad 10 kalena ay ku dhaawacmeen wariyaha TV-ga caalamiga ee gobolka Sool ayaa waxa uu soo sheegay in sababta uu dagaalkani ku bilaabmay lagu sheegay inay tahay deegaameen cusub oo halkaas laga wado deegaameen cusub oo halka lagu magacaabay yoocad 60 kiiloomitir lafta weyn u jirta laga wado taasoo maalmihii ugu dambeysayna ay halkaasi laga deerinay in labadaasi beelood dagaal ku dhexmaro waxa uu wariyuhu soo sheegay in khasaaraha ka dhashay dagaalkaasi in dhaawacoodii qaar kamid la soo gaarsiiyay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool isla markaasina hadda cisbitaalada ay yaalaan ciidamada qaranka Soomaaliland ee ku sugan gobolka Sool ayaa wax la xaqiijiyay in meelaha ay ku dagaalamayaan labada beelood ay gaadheen waxaana ay kala dhex galeen labada beelood ee halkaasi ku dagaalamaya in dhimashadu ay sii badan karto maadaama oo ilaa hadda socdo dagaalku waa sida uu xaqiijiyay wariyuhu khasaaraha ka jira dagaalkaasi labada beelood ku dhexmaraya deegaanka lafta weyn ee ka tirsan degmada xudun ayaana noo suura gelin wixii wareer soo kordha horumarka dhaqaalaha dalka iyo kaalinta dhinacyada dhalinyarada iyo haweenka ayaa halkan lagu soo bandhigay shirkan oo ay muhiimadiisu ahayd kobcinta dhaqaalaha dalka ayaa lagu casuumay haween iyo dhalinyaro sidoo kale waxaa ka qayb galay siyahayaha xilka wasiirka maaliyadda ku-xigeenkiisa gudoomiyaha ururka haweenka qaranka gudoomiyaha dhalinyarada gobolka Banaadir iyo gudoomiyaha ku-xigeenka arrimaha bulshada gobolka Banaadir ujeedka shirkan horumarka dhaqaalaha dalka ayaa lagu sheegay sidii loo heli lahaa kaalinta dhalinyarada iyo haweenka marka laga hadlayo horumarinta iyo kobcinta dhaqaalaha dalka iyadoo muddo 3 sano iyo bar oo ay shaqaynayso wasaaradda maaliyadda la sheegay in wax badan laga qabtay nidaamka maaliyadeed ee dalka qorshaha daafurnaanta iyo horumarinta hay'adaha maaliyadda ayaa shirkan waxa uu qayb ka yahay nidaamka dib u habeynta dhaqaalaha dalka haweenka iyo dhalinyarada ka qayb gala shirkan ayaa muujiyay sida ay muhiim u tahay fursadahooda waxaana lagu booriyay in door wanaagsan ay qaataan gudoomiyaha dhalinyarada gobolka Banaadir Cabdikaafi Maxamuud Makaraan gudoomiyaha ururka haweenka qaranka Batolo Sheekh Axmed Gaballe iyo gudoomiyaha ku-xigeenka arrimaha bulshada gobolka Banaadir Basmo Caamir Axmed ayaa ka hadlay kaalinta dhalinyarada iyo haweenka ee horumarinta dhaqaalaha dalka canshuurtu waa muhiim in muwaadinka Soomaaliyeed hadii uu canshuur bixinin dalkiina ma dhismaayo dawladdiina ma helayso dhaqaale ma soo galay marka insha Allah taala annaga waa ku baraarugsanahay madaxweyne wasiir waxaan diyaar u nahay dhalinyarada guud ahaan in barnaamijkan fahansiinta bixinta canshuuraha kale doorka ay ka qaadan lahaayeen sida loo garab istaagi lahaa dawladdeena intaba inaan ka shaqeyno waxaan idinka codsanaynaa in la siiyo gabdhaha qadarinta ay mudan yihiin in abaalka ay ku leeyihiin dalka loo gudo in ay maaragtay nolol u qalanta ku noolaadaan sida haweenka kale in qorshaha qaranka lagu daro isbitaalada dumarku ay ku dhalaan kuwa caruurta lagu xanaaneeyo iyo maaragtay caafimaadka hooyada iyo dhallaanka in xoogga la saaro sababtoo ah hooyo aan caafimaad qabin cunug caafimaad qaba ma dhali karto hooyadu marka dhinaca dhaqaalahana hiilay uga baahan tahay dhinaca caafimaadka hiilay uga baahan tahay dhinaca waxbarashadana hiilay uga baahan tahay haddii ilmuhu aysan iskuul lacag la'aan u dhiganin ma tabargarayn karto noloshooda san canshuurta aadan bixinin annaga ma bixin karno waxbarasho lacag la'aan waxaa ku soo barbaarteen waxbarasho lacag lagu bixinayo maanta jiilka idinka dambeeyo mustaqbalkooda waxa dhisi kara waa idinka haddaad qayb ka qaadataan inaa mustaqbalka dhalinyarada Soomaaliyeed caruurta Soomaaliyeed maanta soo barbaaray dawladnimada indhaha ku soo furto ku soo barbaaray haddaadan idinka aadan u istaagina dhexda aadan u xirinina waxa uu suurto gelinayso dhalinyaro 75 awoodda ugu badan dalka haysatiin kan xun inaad ka wacyigelisaan siyahayaha xilka wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda Cabdullaahi Sheekh Cali Qaloocow oo ka hadlay madasha kulanka ayaa sheegay in bulshada ay qayb weyn ka qaadan karto horumarinta dhaqaalaha dalka mana la qaadan karo oo idin sheegaya in xamar wadooyinkiisa ay burbursanaadaan 3 ilaa 4 milyan magaalada degan in la sugo canshuurta beelay anagoon 24 saac u taagana shilimaadka la soo ururiyo kaliya in wax lagu qaban karo moodina waxa la rabaa magaaladan iska wax u qabso siyahayaha xilka wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Bayle oo gunaanadkii kulankan ka hadlay madasha ayaa ku dheeraaday ka hadalka arrimaha dib u habeynta maaliyadda iyo qorshaha dinacafinta waxaana uu sheegay in wasaaraddiisu arrimahaasi ay wax badan ka qabatay inaan inagu isku filaanaan u baahanay marka annaga waxay naga go'aantay waxa weeye kharashka dawladdeena ku baxay inaguna iska bixin kharashka dawladdeena ku baxay iska bixino kharashka ku baxa developmentkeena ama horumarkeena inagu iska bixino
inaan isku filaano qiyaaska ama micyaarka annagu aan haysano ee aan doonayno maalin walba marka gobolku dhaco buuga xidhayno halkan gaadhnay waxaan ku soconaa waxa weeye inaan inagu isku filaano waxaa kaloon ku soconaa waxa weeye program baa jiraan imika wadna anagu aan wadno madaxweynuhu horseed nagu yahay Somalia feeds Africa wala Somalia feeds Africa hada wallahi Somalia feeds Africa waxa weeye 20 sano ee soo socda sida aan nahay maanta hadaan ahaan mashruuca madax ayay ku jira hadaan sameeyno Somalia Africa ayada feed garaynaysa war qoraal ah oo lagu baahiyay dagaalka ay safaaradda Mareykanka ee magaalada Muqdisho ku leedahay baraha bulshada ayaa waxaa lagaga digay in muddo kore loo sameeyo dowladda federaalka ee Soomaaliya sidoo kale isla qoraalkaasi ayaa waxaa lagu sheegay in Mareykanku uu si dhow ula socon doono ishana ku hayn doono wejiga saddexaad ee shirka magaalada Dhuusamareeb uga socday xukuumadda federaalka iyo madaxweynayaasha maamul goboleedyada dalkaasi safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya waxay si aad ah u sugaysaa natiijada shirka saddexaad ee Dhuusamareeb baahida loo qabo wadatashi ballaaran iyo isu tanaasul dhab ah waa muhiim hanaanka doorashaduna waa inuu noqdaa mid ay saldhig u tahay taageerada guud ee dowladda federaalka dowladaha xubnaha ka iyo saamileyda kale ee siyaasadda dalka waana in doorashadu waqtigeeda ku dhacdaa muddo kororsi la'aan ayaa lagu yiri qoraalkaasi ay soo saartay dowladda Mareykanku wejiga saddexaad ee shirka magaalada Dhuusamareeb ayaa ah mid si weyn loo wada sugaya waxaana uu ku soo beegmaya xilli dhowr maalmood oo kadib xidhitaankii wejiga labaad ee shirkaasi si lama filaan ah qaar ka mid ah qaxootiga ka soo cararay colaadaha iyo dagaalada ka socda dalka Yemen ee ku sugan gudaha Soomaaliland ayaa saaka maalintii labaad isugu soo baxay afaafka hore ee hay'adda qaramada midoobay oo qaabilsan qaxootiga ee UNHCR ee ku taala caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa isku soo baxan ay qaxoontiga dalka Yemen ka cabanayeen hay'adda qaramada midoobay oo qaabilsan qaxoontiga ee UNHCR ayaa ay sheegeen in ay ka jartay lacag ay hay'addaasi kaga bixin jirtay qaxoontiga Yemeniyiinta ah waxbarashada isla markaana ay u sheegtay in carruurtooda geystaan dugsiyada dawliga ah qaxoontiga dalka Yemen ayaa hoosta ka xariiqay in caqabada ugu weyn ay tahay in carruurtoodu aanay fahmaynin afafka Soomaaliga iyo Ingiriiska isla markaana lagu dhigo dugsiyadaasi iyagoo amuurtaasi ka hadlaya qaxoontigani ayaa waxaad ladoodii kamid ahaa والذي كما سبق ما قبلنا أن شكروا كثير جدا دولة صوماليلاند لاستقبالنا واستقبال اللاجئين بشكل وبحفاوة وقدموا لنا جميع الاحترام والتقدير صوماليلاند سيدي أن هرب أقوم هاد نقني وحانو أحينا احترام يقدرين لكن وحانو كعبانينا هايدا قحونتيجا أدونك وحانو لين هاي عرور تيادو مدقان كارتو اسكولة الدولة وين كو أدقتها إني فهمان عشرة واية ما فهميان لوقضها الصومالية إنجليز دا جينا اليوم نطالب بحقوق أبنائنا في التعليم حيث maanta waxaanu halkan iskugu nimidnay si aanu ugu doodno xuquuqda carruurteeda inay waxbartaan sidaa darteed ayaanu halkan iskugu soo baxnay haddii ay carruurteedu waxbarasho heli waayaan guryaha ayay joogi doonaan taasina annaga ayay ceeb nagu tahay sidaa darteed annaguna ma aqbalayna arrintaasi dowladda Soomaaliland iyo shacabka waxaanu kala kulannay soo dhaweyn hay'adda UNHCR-na waxaanu ka filaynaa inay ka jawaabto dalabkayaga madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle Dr. Maxamed Cabdi Waare ayaa magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka kulan kula qaatay guddiga farsamada ee loo xil saaray ka soo tala bixinta hanaanka doorashooyinka oo waqtigooda ku qabsoomo kuwa lagu aasaasay magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug kulankan oo ahaa isxoguraysi iyo in guddiga lagu dhiirigeliyo habsami u socodka howlaha cusub guddiga aad u mahadsantahay run ahaantii maanta waxaan idinku imid inaan guddigan xogaalnimada aan kala qaadano inkastoo tiimka Hirshabelle ka socda ay aad ay brief gareeyeen howlaha ay qabsoomay meesha wax idin marayaan runtiina waqtiga yar oo aad isu timideen hawsha aad qabateen runtii waa ka muuqataa inay idinka go'an tahay inaad aad fikrado wax ku oola inaad keentaan haddana inaan mataqaanaa dhammaantiin aan idin wada maqlo aadaan aan ugu faraxsanahay taasaan idinku imid waxa kale oo idinku imid inaan idin muujiyo taageero howl runtii weyn oo wadankoo dhan la fiirsanayo laga warsugayo ayaa la idin igmaday in ilaahay idin fududeeyo tawfiiqdana idin waafajiyo oo talada fiican idin haleeshiisiyo inaan idinku taageero intaasaan idinku imid weynaha
dowlad goboleedka Hirshabelle mudane Waare iyo xubnaha ka tirsan golihiisa wasiirada iyo howlwadanada la socotay waxaan ku soo dhaweynaynaa kulan hawleedkan ay maanta nagu soo booqdeen annagoo ah guddidii loo igmaday inay ka soo baaraandegaan talana ka soo bixiyaan arrimaha doorashooyinka 2020 sharaf weyn bay madaxweyne noo tahay maanta inaad halkan nagu soo booqato waa xirtii aad u soo igmateen hawshan markii aad fadhiisateen haddaad tihiin madaxda qaranka heerarka kala duwan magaalada Dhuusamareeb in muddo ah oo hadda 7 ku dhow halkan ayaa fadhiisin noo ahayd shaqaanu ku jirnay shaqadaas waxaanu madaxweyne isku afgaranay dhowr arrimood oo haddaan qaar ka xuso ay ka mid tahay inaanu qorshe hawleed samaysano maadaama ay soo dhowdahay maalinkii ay bilaabmi lahayd Dhuusamareeb 3 qorshaha aanu samaysanay qorshe hawleedka oo qaybo kala duwan ka kooban waa qorshe ku meel gaar ah oo lala sugayo inta aynu isu soo idlaanayno dhammaanteen maamul goboleedyada inaga maqanay inteena kala xag farsamo haday noqoto waxa markaa qorshaha madaxweyne haddii aan ku taataabta ka mid ah in lala tashado daneeyayaasha saameynta kule arrimahan waxaa adiga ka horeeyay oo na soo booqday madaxweyne Qorqor galmudug madaxweynaha koonfur galbeed Cabdicasiis Laftagareen maantana inaan adiga ku soo dhaweyno aad baan ugu faraxsanahay isla shalay madaxweyne waxaanu la kulanay guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka xubno ka tirsan guddoonka waxaanu maantadan la kulanay iyana xisbiyada dalka ka jiray diiwaan gashan galabtana waxaanu la kulmi doonaa ururada haweenka waxaan isla leenahay markaa tala Soomaaliyeed oo dheeli tiran oo xaqiiqadana ku dhisan sharcigana xeerinaysa sidii loo heli lahaa hal baadi goobo marka madaxweyne anagoo warka kugu badinayn waxaanu jeclaan lahayn wixii dardaaran tala waayeel waayo aragnimo ee nala wadaagayso inta aanan u socdaalin magaalada Dhuusamareeb madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland mudane Siciid Cabdilaahi Deni iyo maareeyaha guud ee dekedaha Jabuuti mudane Abuubakar Cumar Xadi ayaa maanta socdaal dhinaca cirka ah ku tagay dekeda Tojora isagoo arrimahaas ka hadlayana waxa uu yiri maalmihii labadii maalmood soo dhaaf waxaan joognay dalka Jabuuti aan marti u ahayn dowladda Jabuuti kulamadii aan qaadanayna qayb ka mid ahayd inaan horumarka dalka Jabuuti uu gaaray aan soo aragno si aan waxna uga baranno uguna hambalyeeno dadaalka badan ay sameeyeen aan u aragno maadaama dalkeenni labaad uu yahay runtii booqashada maanta Tojora waxay ahayd booqasho aan ugu talagalnay inaan wax ka baranno aragno sida dowladda Jabuuti horumarka uu sameynayso boorkan oo macna gaar ah noo lahaa oo ah boorarkii u dambeeyay ee dowladdu dhistay waliba ay 100% ay leedahay marka aan ka hambalyeynaa dadaalkaas faraha badan ay dowladda Jabuuti ay madaxweynaha iyo dowladdu ay qabatay sidoo kale annagana waxay noo tahay casharo badan oo aan ka baran karno sidii aan wax uga wada qabsan lahayn ugana faa'iideysan lahayn khibradooda iyo adeegyada ay hayaan annagana aan isu weydaarsan lahayn maadaama aan nahay laba dal oo jaar oo walaalo ah muhiimadda booqashadeena intaas saldhigeedu ah maanta